waayahay saaxiibayaal axad wanaagsan update-ka u dambeeya market-ka raba insha Allah inaan idinla wadaago maanta waa axad weekendiga Monster news badan ma jiro laakiin waxaan rabaa ku ugu muhiimsan insha Allah inaan idinla wadaago sida ujeedada maanta wada cagaar iyo suuqa inkastoo daraad waxa weeye loo daatay exchange-ga Bybit runtii $1.4 billion laga jabsaday haddana waxaa moodaa Ethereum inuu soo weli dareemin culayskaas oo afraad u dambeeyay 2.6% buuba waxa weeye kor u kacay Ethereum oo waxa moodaa culayskaas inuu asaga dareemin inkastoo saaxiibeen newsada qaar ay leeyihiin lacagtii Bybit laga jabsaday Ethereum ka ahayd weli waxa weeye meel kale loo bedelin soo kale BTC loo bedelin weli waxa ku haysan Ethereum inkastoo shal Ethereum xoogaa u daatay qaybna waxa leeyahay xoogaa Bitcoin baa qayb bay u bedeshay nimankii North Korean ka lacagta dhacay laakiin in general saaxiib Ethereum laga dareemin maanta wali waxa weeye aad buu fiican yahay saaxiib yaal waxa rabaa inaan idinka dabageeyo nimankii Bybit waxay ku dhagan yihiin blockchain-kii Ethereum bay ku dhagan yihiin update baa inaga haya oo waxay leeyihiin lacagta laga soo celiyo rollback waxa dhahan ha sameeyaan nimanka Ethereum way sameyn karaan inkastoo qarash iyo waqti u baahan tahay lacagta dib u soo celin karaan Ethereum waxa weeye update baan ka ayagana way ka soo jawaabeen soo kala saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin wadaago exchange-da ugu dambeeyay la jabsaday sanadii ugu dambeeyay iyo siyaabaha annaga wax aan uga badbaadi karno maadaama dadka qaybtooda ay exchange isticmaalaan marka aad cumrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto moobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska saaxiibayaal intaan news-ka aadin haddii aan isla fiirino suuqa BTC waxa maraysaa $96,266 bay maraysaa afalaad saac u dambeeyay minus bay ku jirtaa ama casaan oo 0.2% ah Ethereum ayada way fiican tahay 2.4 faa'iida bay ku jirtaa XRP wax yar baa isla daatay koonka loo yaqaan Solana 171 uu soo kacay asaga wali 160 xogaa uu joogay runtii aad buu saaxiibayaal asna u fiican yahay coinka maanta aad u kacay saaxiibayaal waxa kamid ah coin kamid ah saaxiibayaal Realwood asset-ka oo si gaar ah uga soo hadli doono koonka loo yaqaan saaxiibayaal Mantra saaxiibayaal koon fiican Realwood asset-ka waxa loo yaqaan buu waxa way coinka hogaamiye buu kamid yahay Realwood asset waa maxay waa coin saaxiibayaal ama token mashaariic sax ku dhashan sida real estate-ka commodities-ka dahabka adeegdeed business-da caadiga naqaan adduunka yaalo ganacsiyada ba waxa token laga dhigayo tokenization waxa lagu sameeyaa waa category saaxiibayaal ugu waaweyn suuqan cryptocurrency marka Mantra maanta waxa weeye asaga hogaaminayo runtii si fiican buu kacay waa Realwood asset-ka kamid ah ama AWS insha Allah si gaar ah uga soo hadlaya saaxiibayaal haddii aan news-ka ku bilowno waxa hadlay ninka waxa weeye maamulaha ka ama CEO-ga Bybit Benzo loo yaqaan wuxuu sheegay inay wax kasta isku day doonaan si ay lacagtaasi loo soo celiyo waliba waxa dhahay dadka nagala shaqeeya waxaan siin doonaa abaalmarino baan siin doonaa marka wuxuu yidhi mataqaanaa waxa weeye exchange-ga dalkaas ku jira waxa kaasha doonaa way mataqaanaa la shaqeynta sharci fulinta law enforcement-ka dowladaha waxa weeye waa kaashan doonaa uu leeyahay sidoo kale Ethereum blockchain-kana waa kaashan doonaa uu leeyahay inay naga caawiyaan si mataqaanaa loo sahmiyo xalalka lacagtaasi lagu soo celin karo iyo guud ahaan saaxiibayaal wuxuu yiri qof kasta oo case-kaas naga caawin karo marka nimanka Ethereum bay horta ku dhagan yihiin xaalad loo qabto saaxiibayaal barta X niman khubaraha isku yimid oo cryptocurrency aad ugu jiro kullina waxay ku dhaganayeen Ethereum blockchain waxay leeyihiin wuu soo celin karaa lacagtan haddii uu waxa weeye sameeyo wax loo yaqaano rollback hadduu sameeyo blockchain rollback hadduu ku sameeyo Ethereum wuu soo celin karaa Benzo aad buu arintaas u codsaday in mataqaanaa go'aankaas ay sameeyaan laakiin saaxiibayaal Ethereum maadaama uu halin leeyahay oo halin heshiiskiisa ka dambeeyay asaga wuxuu taagan yahay haddii la vote gareeyo process-kaas communities-ka waa arkaynaa laakiin ma hubo macquul in taa ma sameyn karo yiri marka adigu waa lagu dhagan yahay sidoo kale saaxiibayaal nimanka South Korean-ka mataqaanaa Lazarus Group la dhaho horta waxay dhaceen waa 489,395 Ethereum lacag ahaan wuxuu dhigmataa marka 1.3 billion bay lacag lahaan u dhigmataa marka lacagtaas qaateen wali waxa leeyahay inkastoo mataqaanaa ay ku wareejin wallets kala duwan lacag ku wareejin laakiin wali Ethereum bay ku hayaan lacagta waa leeyahay someone bits u dalbaa leeyahay that's why waxa way Ethereum lacagta isku bedelin oo wali u soo dhacitaan weyn shalay bay dhacdaan maanta perfect way saaxiibtahay marka saaxiibayaal Bybit waxa ku dhawaaqeen mashruuc la dhaho bounty program barnaamij abaalmarina oo ku kacay 140 milyan
oo qof kastoo hackerskaas caawin karo oo si lacagta loogu soo celiyo mataqaanaa ay barnaamijkaasi ku dhawaaqeen marka runtii aad buu u dadaalayaan hataa hackeradii bay leeyihiin hana la caawiyo marka barnaamijkaasi meesha ku dambe arki doonaa saxbil haddii aan kusii socona Bybit shalay horta good news iyo bad news baa laba exchange usoo baxay Coinbase waa ogeedeen saka waxay ka tuurtay dhammaanba lawsuit-ka bay ka tuurtay wax kastoo loo haystay waa laga tuuray sidoo kale Bybitna waxaa ku dhacay largest security breach in history baa ku dhacday crypto history oo aad runtii loo jabsaday nimanka Bybit ay sheegay shalay waxay degayiin saaxiibyal Dubai exchange-ga labaad weeye second largest by trading value lacagaha dhex maro marka dhanka mataqaanaa trading value ka noqoto asaa ugu weyn second largest weeye I think Binance ka horeeya dhankaas laakiin exchange ahaan si guud waxa ka horeeya Binance iyo Coinbase laakiin volume kana ka horeeya Coinbase kaliya mataqaanaa waxa soo galaya Binance marka in 1.5 laga dhaco exchange inta la eg baa saaxiibyal wax mucjisa bay runtii noqotay marka taariikhdan saaxiibyal waxba laga bartaa saaxiibaa nin saynisyahan oo blockchain-ka aad uga falanqoodo taam la dhaho wuxuu yiri saaxiib waa lacagtii ugu weyn horta crypto hal mar laga dhacay kaliya ma ahan biin mataqaanaa crypto wuxuu taagan yahay waxa kale macquul ah inay tahay the largest single theft of any kind ever taagan yahay waa dunida dhan hal mar lacag mar la haday ayada ugu taagan yahay saaxiibal charterkan wuxuu tusayaa lacagihii laga haday crypto all time ka dhan kan awgeer saaxiibal 290 milyan baa laga dhacay DMM kan asna waxa laga dhacay 708 waa 2024 325 way kan waa 2022 wormhole kan awoodo asna waa jira kan waa mataqaanaa waa bakaraya MTGOS kan FTX waa kan ugu caansan ma asna 400 Coincheck Robin Network saas u kala weeyeen Polymarket Poly Network mar 2022 asna 600 laga dirtay oo kan labaada Bybit saaxiibal waa kana asaga hogaaminayo number 1 runtii asaga ah marka taariikhdaas ay nimanka ku dhacday dhanka la saaxiibal di aan fiino koonanka afartan saac ugu fiicnaa waa kana ugu horeeya ka idin sheegay Mantra waa real asset $6 bu mariya hadda runtii koon aad u fiican weeye sidoo kale saaxiibyaal inta kale saaxiibyaal ma badna 3 iyo 2 u dhaxayaan update-ka saaxiibyaal suuqa waa intaas maanta iska weekend bay wax badan ma jiraan aad baa idin salaamiya ciao ciao